fiirshan waxaan inuu ninka ma qurux badnay hal fiirshay gaar dameerkan rag ila jir qaar ay ugu qoslaa waxay yireen gaar dameer xawga aday ma waalantaad ma hal fiirshan idinka caadi waa dhib male ninka gaar dameerka gacanta saanay ugu sarneed qalqal saa'id ha ka muuqdo dagaal yiri jidkaan oo geeskan ka taagan ninkan soo gaari u saaran yahay jawaan sina u caramadoobeysan yahay jawaanka telefoon u dhagta saartay si oo kalsoonina kulamo waramin asoo annagana na fiirihayo oo telefoonka wax lama xaraf yiri ama uu iska dhigo hoos dhigay gaar dameerkan hal qabtaan waa qabana waa baakinay geeskan ku baakinay gacantan midigaasan ugu saarneed asiga jawaanka kor u saarnaa waliba hoos iyo xataa uma jirin waa la joojiyay jawaanka yaa la furay waa fiican tahay leeyahay okay waa hawshan yaa kugula jiro hawshan wuxuu ninka loo saaxiibkay oo noocaas ay ula jiro xaguu jooga waa doogligadaashiisa u degan yahay gaari ma wadan markaas anaga lugtaan ahayne gaari dameerka reer karo asar shaqaara uu soo tagnay ninkii iyo alaabti iyo baabuur meesha socdaan cishanay waa isla raacnay gurigiyaan aadnay ninka odaga guriga jiifo geeska jiro axmed liidaan ugu tagnay waa la iswarsaday guriga la baaray batriyaasha baasha lagu duulay baasha ma ayna xirxirneen markaas 8 xabay ahayd iyo koomba sagaalaad oo waxa ku jirtay bahal budaho madoobo kulay barnaamijka in lagu xalin rabo ilaa taa iyo bambacanuuni guriga batriyaalki iyo xoogay fiyuusyo kale iyo walxan ka soo helnay waa isku soo wadnay ninkan iyo asiga hal kale oo asna gubta joogo nimankan ka sii qaaday rabo inoo sheegay waxaan dhahnay uu waciyay waa la qabo waay telefoonka marlamaad ku celiyay irigu ku celsho qabo waay sidii aan isugu soo kaxaynay waxaan ku wareejinay marka saraakiisha naga sareeyay macalaayagaya dameerkooda iyo qaraxooda jinigooda waxooda mar isku soo wareejinay ninkan maxaa u shaqeeyay marka hore shakiga maxaa ku galshay shakiga waxaa kulmay anagoo raad haynay oo meesha ayaanto liibar noo saarnay 3 galab 4 5 maalmood aan tagay oo in meesha wax ka soo galay xagga sirdoonka xog oo saa'idana aan ku hayno meeshii iyo ninkan oo jawaan dhinacaha ugu buuxdo watay dameerna saaran yahay telefoonna ku waramay kalsooni aan qaban ciidankana goonjareer u fiirihaayo iyo aniga jidka aan san u taagnaa xilli waxaana waa aadlay baraaho jidka wax markaas macquul oo weyn xataa ma socon adiga mootooyin yar iyo laba mooto gaduuno bajaaja iyo mid lama lugood leeyahay socota mar wax kale uma socon laamiga markaas waa fiirshan waxaan inuu ninka ma qurux badnay hal fiirshay gaar dameerkan rag ila jir qaar ay ugu qoslaa waxay yireen gaar dameer xawga aday ma waalantaad ma hal fiirshan idinka caadi waa dhib male ninka gaar dameerka gacanta saanay ugu sarneed qalqal saa'id ha ka muuqdo dagaal yiri ninka ugu horeeyay dagay aniga ninkan odaga igu horeeyay dameerku gar ka qabtay jawaankan saan gacanta u saaray alaab adag inay ku jirtaan arkay oo okay waay jidka leexiyaan jidkan saan geeskan ugu leexinay jawaankan wax soo dajihay aan iska dhigma waaba daji waay aniga waa awood badan yahay 8 xabo miinaha ku jirtay qalabkiisa dhanbo wax la daji kama aad iyo culus ah oo adiga 40 kiilo 50 kiilo amal waa awood irtaan qoray boosh wateen isla markaas wax ma hamli kariyo rakalaan waana wixii la dajiyay waa la fiirshay in alaabtu tahay baabuurkan ruuraayo meesha ka helnaba oo ku qabsanay sidii aan guriga ku tagnaba ninkan kale gurigan ka helna asagan eriyada dameer waa ka shaqeeyay Soomaa dameer hadda oo markaas oo macquul si guud dameerka cafadaas dameer oo si guud oo macquul oo markaas hal dhuxul iyo ka shaqeeyo meelaha iyo geeyay waa la arkaa laakiin dameer guud oo caramadowga ka yimaado safaray inuu coos wadin kama shaqeeyo marka dhanka caramadowga dameer oo ku yimid diga ha eriyada dameerkii ma haysan ma dhinaca dameerkii ma kama imaan